Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha nagu xiran mar kale iyo soo noqod wanaagsan. Caawa waxaan idin wadnaa barnaamij kale oo xiisihiisa wata. Marka hore haddii aad ka mid tahay daawadayaasheena waad ku mahadsan tahay la jirkeena iyo la joogeena. Haddii aad nagu cusub tahayna si xushmad leh subscribe, like, share iyo comment waa inoo dhiirigelin intaas. Sida inta badan uga hadalno page-keena ama boggeena YouTube-ka aan ku leenahay, waxaan kusoo gudbinaa waxyaabo dhiirigelin u ah guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinta iyo inta u diyaarsan inay tacab wax soo saar sameeyaan. Horaa loo yiri tacbada ayaa tanaada. In la tacbado aad ayay u qurux badan tahay. Tacabkuna sidiisuba wuu kala yahay. Dadna tacabka way ka faanaan, dadna tacabka way rabaan, laakiin waxay leeyihiin wadiiqa iyo waddo ay u maraan. Qaarkood ayaa heli kara investment ay maanta maalgashi ku sameeyaan, laakiin nasiib darro ma hayaan waddadii iyo fursaddii ay ku haleeli lahaayeen. Marka horaa loo yiri talaadi kaa maqan maa walaalka ayay ku jirtaa. Waxa anaga maankeena ku jiro ka guuxaya qalbigeena ku jiro aan samaysan lahayn samaysanayno ku guda jirno ayaan rabnaa adigana inaan kula wadaagno si adigana fursadda dhinacaaga ugu qayb qaadato oo aad uga faa'iidaysato waqtigaaga. Sanadkan 2025 ee aan ku jirno bilihiisii hore ay soo gurmeen, waxaan rajeynayaa inuu sanadkaaga noqdo hadda adiguna aad la timaadid dadaalkeeda waa ka mid dhalin doontaa biidhnillaahi albaari. Qodobka caawa idin wadna wuxuu yahay beerashada basasha. Sidaan aan wada ognahay basasha aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa, guri aan laga isticmaalinna ma jiro. Maqaayad walbana waa laga isticmaalaa. Waxayna ka dhigan tahay guud ahaan bulshada basashu inay aad u isticmaasho. Haddaba basasha ma lagu beeran karaa ciidda hooyo ee Soomaaliya? Jawaabtu waa haa. Falsafad oo waxaa jirta oo dadka laga gaday mar hore inaa waxaas waddanka aan lagu beerin karin dalagyada qaar, laakiin waa been. Cunaqabateen si farsamaysan dadka loo saaray ay ahayd, laakiin basashu waa la beeran karaa. Waana waxyaabaha ugu wanaagsan ee maxaa ku dhahaa sida xoogga leh wax soo saarka u leh dhaqaalaha xoogana laga samayn karo. Basasha awalan waxay u baahan tahay soil oo wanaagsan ama ciid oo maxaan ku dhahaa oo ku fiican beerashada. Sida aan wada soconana ciideena hooyo haddii aad joogto beled ama baadiyo in wax lagu beertaa huwa very easy waaye. Haddii marka laga soo tago beerashada kadib daaweyn ayaa jiro oo la isticmaalo. Inta badan daawooyinkaas gudaha dalka waa laga helaa. Wixii aadan gudaha dalka ka helinna wadamadan deriska ah ayaa laga helaa oo maanta Soomaali adduunka meel aysan joogin male. Qof aan ehel u maqneenna ma jiro. Marka haddii ay dhacdo xataa in daawooyinka qaar waddanka aadan ka helaynin, inta qof aad ku maqan oo banaanka ku jira aad wacato oo kuu soo dhiibo ayaa kaaga filnaan doonto. Intaas kadib waxaan rabaa horta basasha tusaale ahaan haddii hadda aad heshid dhul cabirkiisu yahay 1 hektar ama 1 acre haddaa heshid oo dhul ah oo aad ku abuuratid basasha, maxaa ka faa'iidi kartaa? Maxaa qarshoon kaa geli karo? Basasha intaadan abuurin dhulka ayaa loo nadiifiyaa, waa la caragidiyaa. Kulley hadhowdi khubarada markaas beeralayda ah ee ka agdhow ayaad consultation ka qaadan doontaa. Laakiin markii dalagaas abuuratid 1 hektar waxa uu soo saari karo qiyaastii waa 10,000 oo kiilo ilaa 20,000. Haddii si kale loo dhigo waa 10 tan ilaa 20 tan inuu soo saari karo 1 hektar. Haddii magaalada aad joogtid tusaale ahaan kiilooga basal uu ka joogo 0.8 ama 0.7
point 8 haduu ka joogo almost waa $8,000 haddaan qaldanayn 10 kun oo kiilo haddii 20 kun oo kiilo uu kusoo saarana waa $16,000 haddii point 7 uu yahayna waa 7,000 ilaa iyo 14,000 oo dollar ayuu kusoo saari karaa average ahaan marka waa qiyaasi kartaa qiimaha xooga leh markii aad dalagaas uu kusoo go'o aad ka heli kartid dhaqaalaha siitina uu noqon doono dhaqaalo aad runtii aad kabasho fiican ka soo hesho adigana aad ku sii socotid shaqadaada oo moraal fiican aad ka heli doontid sidoo kale basasha ma qaadato waqti aad u badan markii la beero ugu badnaan 3 bilood iyo jajab ilaa iyo 4 bilood ayay kusoo kartaa oo lagu soo gurtaa marka haddii 4 bilood ka hor aad maalgelisay adigu $500 ama ilaa $500 ilaa $1,000 iska dheh haddii aad maalgelin aad ku samaysay oo 4 bilood kadibna aad kasoo guratay 8,000 ilaa iyo $16,000 waa qiyaasi kartaa waa lacag aad iyo aad u fiican oo mararka qaarkiis xataa kambaniyada qaar xataa aysan soo saarin kabitaalkaas waxaa kaloo heli kartaa iyadoo beertaada ay dhinacna aadan uga bixin in customerka kugu xiran inay beertaada kugu yimaadaan ay kaaga qaataan adoo transportation iyo qarash kale uusan kaa bixin marka haddii oo aad ku dhiiratid barnaamijkaas inaad samaysatid waa hubaal waxaa helaysaa faa'iido macno weyn ku fadhida noloshaadan hore u dhaqaajin doonta hadduu ilaahay qadaro marka fikraddan waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu dhiirigeliyo dhalinyarada soo dhameeyey iskuulada jaamacadaha ee joblesska ah ee xaafad jooga uu dilay stresska uu hayo qaarkood raba wadanka inay isaga hayaamaan haddana qarashaad ay ku baxaan aan heli karin laakiin maanta fursadaas xoog leh ay u bannaan tahay 3 gobolba arrintaas waa ka suurtogal inaad ka hirgelisid kow waa gobolka banaadir daafihiisa marka laga baxo xeyndaabka gudaha markaa ka baxdo banaanka aad u baxdo kale magaalooyinka soo koraya oo cusub oo hadda kusoo biiray caasimada oo kale waxay leeyihiin dhul mataqaanaa aad u carboon oo dalaga in lagu abuurto ku fiican marka haddii aad ka gudubtidna labada shabeel oo kale shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose adoo meel fogna aadan gaarin waxaa ka bilaabi kartaa zona ceelasha biyaha ilaa iyo degmada afgooye dhinaca kalena maxaan ku dhahaa gas control balcad ilaa iyo balcad ku tag waxaa ka heli kartaa dhul fiican oo beerashada ku fiican marka fursadaas waxaan leeyahay dhalinyarada iisan moogaanin intii aad dalka ka carari laheedeen magafe iyo balaayo daran afka idin dhigan lahayd dadkiina walwal iyo walbahaar ay ku dhici lahayd hashi bogcad ama halkii boos soo cidee lahayd ay iimaansanayeen gacantooda intaad ka saari lahayd waxaa kaaga qeyr badan ama ha laguu soo deensado amba ha laguu soo waxee sidii la raba in lacagtaas yar inta raadsatid dhulkaaga aad barakeysatid ilaahayna dalag fiican oo qurux badan ayuu kaaga soo saari doonaa marka haddii aan soo qunaanidno warkeena waxay tahay $1,000 ka sameey $16,000 4 bil gudaheeda waana mahadsantihiin mar kale waan ku xusuusinayaa inaad subscribe noo saarto like-ta oo inoo dhiirigelin share-tana waa xaggaaga waad mahadsantahay